wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa gaaray degmada Buur-Xakabe ee gobolka Baay oo qiyaastii 60 kiiloomitir u jirta magaalada Baydhabo. wafdiga madaxweynaha waxaa ku wehelinayay xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulkiisa. wafdiga madaxweynaha ayaa halkaasi si diiran looga soo dhaweeyay. soo dhaweyn kadib madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu tababar u soo xiray ciidamo gaaraya 450 askari kuwa oo muddo 4 bilood ah lagu tababarayay degmadaasi Buur-Xakabe. ugu horeyntii wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa soo dhaweeyay isla maraxantaasna ka hadlay munaasabada ciidamada tababarka loogu soo xirayay wasiirka waxbarashada maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Master Saadaad isagoona maanta oo kale ku tilmaamay maalin guul u ah koonfur galbeed. waxaa sharaf weyn loo ah mudane madaxweyne inaan maanta fursad u helo horta inaan ka hadlo marka hore waxaan rabaa inaan wax yar aan ka taabto taariikh yar kooban waqtigana aad u yar yahay qoraxdan way qulushahay. mudane madaxweyne maanta waxaan haynaa waxa way miraha maanta aad noo taagantaad u jeedo waa mirihii aad noo soo dirtay shaqada aniga iyo laba wasiir ku xogeen. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada AMISOM ee ku sugnaa halkaasi oo iyagu tababarkaasi bixinayay. degmada Buur-Xakabe waa meel aad iyo aad ay u jecel yihiin dhaqdhaqaaqa shabaab iyo dawladda Soomaaliya. waa meel istiraatiiji ah oo cid kasta ay u baahan tahay laakiin marka anaga meesha kaliya ma rabnaa ee shacabkeeda ayaan rabnaa. taasi awadeed sida Buur-Xakabe iyo ereyadeeda shaqooyinka laga wado dawlad goboleedka koonfur galbeed aad bay halbowlu ugu tahay. ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in munaasabadani ciidamada tababarka ugu soo xirayo ay tahay mid qaali ku ah dhankiisa iyo guud ahaanba bulshada degta deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. geeka loo ku bilaabo waliyeetiina ciidamada koonfur galbeed daraawiishta yeetin xal ku fadahayo in degmada Buur-Xakabe agagaarsheene cadowga ku xureeyaan iska furan dadkan xabsiga ku jira xabsiga ku biyan dadka loo ku fadahayo كوفيدين قلده لو كبلا وساعدون ويسينك واجبات سنفولي ويواجب سينكو سارينيا ومدك النول قبلدون قارهان قبلك باي قارهان دقمده Buur-Xakabe ويسينك دالتين ويسينك نولين نبديه يهرم مرشة واجبات يسنسارن أديك بولشدون والله فضاو نيسينك أديك تان سشرف له حرمت له Soomaali nima leh dad nima leh ahal nima leh gees nima leh adowgii dhibaatada ka hayo ka hilmaamayaan eraayan awlaadina dhalati tababarkeen qaadati horumarkii shooka neebsaneen oo raaqal faday hadii aad la siin ku waayo dhibaato nagadaas wali la siin ku codsaday ama la sanfaray inay siinay dadkiisa xaqaanka adeegtan. Maxamed Aadan Socdaal Jubaland TV magaalada Buur-Xakabe.